السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا مواضيع دور oo aan ka soo qaadan doono diiwaanka taariikheed ee uu qoray Dr. Sadiq Enow ee ka hadlaya dagaalkii Soomaali galbeed gaar ahaan qaybtiisa koobaad oo ah September 1976 ilaa June 1977 dhowr qaybood oo kamid ah diiwaankaasi ayaan inooga soo xuli doonaa halkan si aan uga faa'iideysano taariikhda facweyn ee buugaasi ama diiwaankaasi ku duugan. qaybtan maanta waxaan ku eegi doonaa haddii ay biidmo aasaaskii jabhadda Soomaali Abo. dad badan oo dhalinyar u badan oo aan taariikh badan ka haynin xaaladii Soomaalida guud ahaan iyo taariikhdeeda ayaa mar walba waxa ay maqlaan Soomaali Abo. jabhaddii Soomaali Abo yay ahaayeen. halkan kaga bogo ku soo dhawow mawduuceena maanta. وسؤال داويني دلك يا إسكالي in badan oo kamid ah dhulkii ay ku noolaayeen oromada ku dhaqan Baali iyo Sidaamo waxa la raaciyay xadkii Soomaali galbeed, laakiin dawladdii kacaanka ahayd ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre lama aanay daahin in dadkaasi oromada ah ay u dhisto jabhad gobonimo doon ah iyo golo siyaasadeed oo iyaga u gaar ah. jabhadda oromadu 6 bilood oo qura ayay ka dambeysay dhismihii iyo yagleelidii jabhaddii kale ee Soomaali galbeed. oromada ku dhaqan labada gobol waxay yihiin Arusha, Booran iyo Guji. saddexdaas beelood waa walaalo, laakiin xiriirka ay Soomaalida leeyihiin ayaa wuxuu yahay mid aan isku mid ahayn. Arushada iyo Soomaalida waxaa ka dhexeeya xiriir dhaqan oo xoogan oo soo jireen ah, kaas oo ku dhisan xushmad iyo iswalaalaysi, halka Booranta iyo Gujidu xiriirka ay leeyihiin Soomaalida uu yahay mid ku dhisan colaad joogto ah iyo nacayb soo jireen ah. waxaase jirtay in Booranta iyo Gujida ay si buuxda ula safteen Soomaalida markii uu qarxay dabshidkii dagaalkii Soomaali galbeed. labada gobol ee Baali iyo Sidaamo kasakow Soomaalida ku dhaqan waxa halkaas ku nool Oromo tiradoodu ay ku dhowdahay 10 milyan. bulshaweyntaas ayaa inteeda badan waxa ay la diin dareen iyo danqashaba yihiin beelaha Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah, xataa kuwa culaadiya Soomaalida qadarin xagga dhaqanka ah ay u hayaan. bulshaweyntaas Oromada ah maamuuska iyo qadarinta ay Soomaalida u hayaan waxa laga garanayaa odhaah ay ku tilmaamaan dadka Soomaalida ah. odhaahdani maxay tahay? waxay yidhaahdaan Soomaali safarti alooje rabiti. waxay la micno tahay Soomaalidu waa dad socoto ah, waana carruurtii eebe. fogaanshaha diinta ka sakow dhaqaale xumi iyo aqoon yari ayaa sababay xidhiidhkii gaabiska ku sugnaa ee ka dhexeeyay dawladihii soo maray Soomaaliya iyo Oromada ku dhaqan deegaamadaasi. dawladdii Soomaaliyeed waxay ku dadaashay in ay xidhiidh la yeelato dadyowga halkaas ku dhaqan. ururinta dhalinyaradii jabhadda Soomaali galbeed waxaa feer socotay in xamar lagu casuumo oday dhaqameedyo ka imanayay mar walba Baali iyo Sidaamo. dawladdu waxa ay markaas doonaysay in ay hanato kalsoonida bulshooyinka ku dhaqan goboladaasi. mashruucaasi waxaa maareynayay madaxdii jabhadda Soomaali galbeed. farriimo ayay u direen odayaashii dhaqanka ee labadaasi gobol. ninka hawshaas u xil saarnaa waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan Maxamuud, gudoomiyihii jabhadda Soomaali galbeed. xilli ka mid ah yaraantiisii ayuu xoolo ku raaci jiray meelo ka mid ah deegaamada Oromada. wuxuu halkaas ku bartay afka Oromada oo ku hadli jiray. taasi waxa ay u sahashay socodsiinta xilkaas la saaray. beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Baali iyo Sidaamo waxaa ka mid ah Xawaadle, Harti, Ajuuraan, Awliyahan, Mareexaan, Dir, Garre iyo Dagoodiye. labadan dambe ayaa awood tiro xoogan oo xoolo dhaqato ah ay ka joogaan deegaankaasi. waa Garaha iyo Dagoodiye. tirada waxtarka leh ka sakow beesha Garre waxay la gaar tahay tayada xambaarsan Soomaalinimada oo ay ku tilmaaman yihiin. beeshaas ayaa waxay ku caanbaxday dhaqan ah hilba u dirir Soomaalinimo. haddii xamar laga helay odayaal matala jabhaddii Soomaali galbeed waxaa adkaatay in la helo odayaal Soomaaliyeed oo lagala tashado jabhad loo dhiso gobolada koonfurta Itoobiya. sidaa darteed madaxdii dawladdii kacaanku waxay baadigoob u gashay in ay soo ururiso rag lagu hirto oo ka qayb qaata dhismaha urur siyaasadeed. Soomaalidu waxay markaas adeegsadeen rag u shaqaynayay dawladdii Soomaaliyeed isla markaana u dhashay beelaha ku nool koonfurta Itoobiya. raggaas ayaa waxay abuureen xiriir dhexmara madaxdii Soomaalida iyo oday dhaqameedyadii beelahaasi. dabadeed si dhowmaalaysi ah ayaa odayaashii xuduudda looga soo tallaabshay oo xamar lagu keenay. ragga xamar yimid waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha Gariire Xanaasuuban Dhagoole, ugaaska beesha Awliyahan Faatulle Dhaqane Baylah iyo ugaaska beesha Garre Xasan Goorow. raggaas ayaa mid walba
lala kulansiiyey hogaamiyihii Soomaaliya Generaal Maxamed Siyaad Barre. kulamadaas ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa looga qiyaas qaadan karo sida ay dawladdii Soomaaliyeed uga go'nayd in ay Itoobiya xoog uga soo celiso dhulka Soomaaliyeed ee la boobay. ugaas Xasan Gorow waxa uu ahaa nin dakana ka qabay labada dawladood ee Itoobiya iyo Kenya. waxaa jirtay sanadihii 1960-aadkii in ugaasku uu laayay rag ka tirsanaa ciidamada labada maamul. sidaas darteed ayuu ugaasku wuxuu ka fogaaday degmooyinkii ay ka dhisnaayeen maamulada Addis Ababa iyo Nairobi. wuxuu xoolo ku haystay baadiye lama degaan ah oo ka tirsan gobolka Sidaamo. markii xamar la keenay oo uu la kulmay madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, hadalladii uu ku soo dhaweeyay ugaaska waxaa ka mid ahaa kuwan: Xasan Gorow, geesi Soomaaliyeed amxaaralaayaan ah ayaa tahay. adigoo kale ma aha in uu gabasho ku noolaado. haddaad horay u ahayd halgamaa, hadda ayaad haysataa dawlad ku taageerta ee tuutahaagii labiso. sidaas ayuu ku yidhi isagoo ku guubaabinayay ugaaskaasi Maxamed Siyaad Barre. ugaaskii beesha Cawliyahan Faatulle Dhaqane Baylah, isaga iyo Maxamed Siyaad Barre yaraantoodii ayay is yaqaaneen. kulankii dhex maray labada nin, ugaasku wuxuu ku dhiirigeliyey madaxweynaha Soomaaliya gobolada Soomaaliya ka maqan in si dhaqso ah loo qabto. ugaas Faatulle Dhaqane wuxuu madaxweynaha Soomaaliya uga xog warramay xaaladda ay Itoobiya ku sugan tahay. hadalladii ugaaskana waxaa ka mid ahaa kuwan: nin amxaaro iiga daba dhilifsanaa oo Soomaali ah in uu jiro u malayn maayo. weligii maamulka Itoobiya ayaan la shaqaynayay oo aan daacad u ahaa. maantana anigiibaa socda oo xamar dhex taagan. haddaba Itoobiya jabtaye, haddaad raganimo yeelanaysaan oo aad dalkii qabsanaysaan, dadkii waa idiin diyaar orda oo aada. sidaas ayuu yidhi. xilligaas waxaa jiray odayaal Oromo ah oo xamar ku sugnaa. raggaas oo ka qayb qaatay gadoodkii sanadihii 1960-aadkii ka jiray gobolka, kuwaasi oo Soomaalida la lahaa xiriir qoto dheer. badankoodu waxay u dhasheen Caruusha. waxaa ka mid ahaa Waaqow Guuto Uuso, Maxamed Cali Ruube iyo Xuseen Xaaji Isaaq Daadi. waxaa xusid mudan in ninkan dambe ee ah Xuseen Xaaji Isaaq Daadi ay dhashay gabadh ah ina Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. raggana waxay ahaayeen kuwii xidhiidhinayay bulshadii Oromada iyo dawladdii Soomaaliyeed. qowmiyadaha Booran iyo Guji qudhooda rag odayaal ah ayaa laga casuubay, kuwaas oo fadhiga ka qayb galay. waxaa ka mid ahaa Xaaji Maxamed Kunta iyo Qaadi Jeena Ejersa. waxaa xusid mudan beesha Guji sanadihii 1960-aadkii in ay ahayd mid la dhan ah oo la dhinac ah dawladda Itoobiya. iyagu markaas waxay ka soo horjeedeen beelihii kale ee Booranta iyo Caruushada ahaa, kuwaas oo Soomaalida la qadiyada noqday. arrintaasi waxay salka ku haysay khilaaf taariikheed oo soo jireen ah. laakiin qabiilka Guji xilligan dambe waa ay ka tallaabsadeen khilaafkii ka dhexeeyey iyaga iyo Soomaalida. waxay markan ogolaadeen in ay si toos ah ugu biiraan jabhad ay wada dhistaan iyaga iyo beelaha Soomaaliyeed ee gobolka kula nool. markii la dhisay golihii dhexe ee jabhadda, Gujidu waxay u doorteen in uu golaha dhexe uga qayb galo nin la yidhaahdo Saari Jarso, kaas oo macallin ka ahaa magaalada Nageyle. dhalinyaro u badan aqoon-yahano iyo ciidamo oo dhalashadoodu tahay Booran ayaa xilligaas waxay ka soo baxeen taliskii ka dhisnaa Addis Ababa. waxay si toos ah ugu biireen jabhadda Soomaali Abo. dhalinyaradaas waxaa ugu darajo weynaa sarkaal magaciisa la yidhaahdo gaashaanla dhexe Wolde Emmanuel, kaas oo hore gobolka Sidaamo gudoomiye uga noqday. xilliga uu socday fadhigii lagu dhisayey xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed, odayaasha Soomaalida iyo kuwa Soomaali Abo intooda badan waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. badankooda waxaa lagu casuumay shirkii lagu aasaasayey xisbigii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. qaarkood waxaa lagu casuumay in ay hadal ka jeediyaan fadhigii. waxaa xusid mudan in Waaqow Guuto uu ahaa ninka keliya ee af Caruusha ku gudbiyey khudbadihii laga akhriyay fadhigii xisbigaasi. raggaas aan magacyadooda soo xusnay dhammaantood waxay ka qayb qaateen dhismihii ururkii Soomaali Abo. qaar ka mid ah waxay xubno ka noqdeen golihii dhexe ee ururka. bartamihii bishii Juun sanadkii 1976 ayaa beelihii Oromada ahaa waxaa fadhi loogu qabtay degmada Qoryooley. waxaa ka soo qayb galay saraakiishii hogaaminaysay dhalinyaradii xeryaha ku sugnaa iyo odayaashii qaxootiga ahaa ee gobolkaas ka yimid. halkaas waxaa lagu doortay 9 nin oo guddi fulineed ah. xoghaye guud waxaa loo doortay Maxamed Cali Ruube. ku-xigeen waxaa isna loo doortay Waaqow Guuto Uuso. labadaa nin waxay u dhasheen Caruusha oo Oromo ah. waxay sheeganayeen in asalkoodu Soomaali yahay. Waaqow Guuto wuxuu sheegan jiray in haybtiisu tahay Ajuuraan. Maxamed Cali Ruube ayaa isna sheegan jiray in uu u dhashay beesha Giri. golaha waxaa ka mid ahaa 2 nin oo tacliintoodu gaadhsiisan tahay ilaa heer jaamacadeed. ragga golaha fulinta loo doortay badankoodu waa raggii sanadihii 1960-aadkii ka qayb qaatay dagaaladii Liibiya lala galay. Maxamed Cali Ruube sababta loo doortay waxa ay ahayd isaga oo Soomaalida xidhiidh wanaagsan
lalahaa waxaa fadhigaas lagu guddoonsaday calan uu yeesho ururka Soomaali Abo iyo in laga qayb qaato dagaalka lagula jiro dowladda Itoobiya ee la doonayo in lagu xoreeyo dhulka Soomaali galbeed. muddadii madasha shirka la fadhiyay waxaa muran badan dhaliyay magacii jabhada loo bixin lahaa. muranka ka dhashay arrintaas ayaa kaliftay in fadhigaasi uu ku sigto in la isku afgaran waayo oo lagu kala kaco. ugu dambeyntii waxaa la soo bandhigay aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan magaca ururku yeelan doono. qolo waxa ay soo jeediyeen in la qaato magaca Soomaali galbeed. magacaasi ma ahayn mid ku cusbaa halganka Oromada. Waaqow Guuto ayaa horay u adeegsan jiray sanadihii 60maadkii. soo jeedintaasi waxa ku qanci waayay inta badan xubnihii Oromada ahaa. iyagu waxay jeclaayeen in laga reebo magaca Soomaali oo ay habboon tahay in halkiisa loo adeegsado magaca Oromo. cilad ayaa jirtay ay Soomaalidu arrintaasi ku diidanayeen. waxaa jira Oromo badan oo amxaaroobay kuwaas oo diintoodu tahay Kristaan afkooduna yahay amxaaro. iyagu waxay ku milmeen siyaasadda dalka Itoobiya. Oromada caynkaas ah bulshada Itoobiya ee rayidka ah iyo ciidamadooduba waxay ku leeyihiin miisaan. saraakiil iyo askar badan oo Oromo ah ayaa jira oo u dhashay Oromada amxaarowday. waxaa laga xusi karaa oo ka mid ah General Tafare Banti oo ahaa generaalkii uu Mengistu Haile Mariam ka qabsaday xukunka. magacyada la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa jabhadda Baali iyo Sidaamo. magacaana si wada jir ah ayaa loo diiday. haddana ugu dambeyntii waxaa la isku waafaqay magaca Soomaali Abo kaas oo ahaa magac lagu xusay laba erey Soomaali iyo Abo. ereyga Abo waa erey la isugu yeedho oo la macno ah halka ay Soomaalidu ka tidhaahdo waaryaa. waxaa adeegsada Oromada ku dhaqan gobolada Baali iyo Sidaamo oo kaliya. sidaas baa lagu helay muwaafaqo lagula baxo magac ay ka muuqdaan dadkii deganaa. waxa kale oo iyana muran adagi ka yimid shakhsiyadda jabhadda identity-ga jabhadda. iyaduna dood badan dabadeed waa laga heshiiyey. arrin saddexaad oo muran dhalisayba waxay noqotay markii la isku dayay in la sawiro juqraafiga uu ku fadhiyo dhulka Abo iyo xuduudiisa. waxaa halkaa ka yimid khilaaf aragtiyeed oo ku saabsan dhulka ay labada jabhadood kala sheeganayaan. WSLF jabhaddii Soomaali galbeed ayaa markaas waxay sheeganaysay gobolka Baali intiisa badan iyo koonfurta Sidaamo. iyadana ugu dambeyntii waa laga heshiiyey. markii la dhisay haddaba ururkii Soomaali Abo odayaashii jabhadda waxay fariimo u direen deegaankii ay ku dhaqanaayeen beelahoodu. nin waliba wuxuu reerkiisii gaadhsiiyey dhambaal xambaarsan dhiilo iyo colaad. fariimihii la diray waxaa ku yimid dhalinyaro badan oo doonayay in ay horseedayaal ka noqdaan gulfiyadan colaadeed ama dagaal ee la diyaarinayay ee la doonayay lagu qaado ciidamada Itoobiya ama dowladda Itoobiya. ciidankaas waxaa lagu soo ururshay xeryo looga furay degmada Doolow iyo tuulada Mooriga halkaas oo markiiba looga bilaabay tababaro ciidan oo degdeg ah.